الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland dibadda gudo dalka gudihiisa iyo daafihiisa meel kasta oo joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa shalayta waxaa magaalada gobolka Togdheer lagu qabtay xaflad weyn oo qiimo weyn u leh iyo muhiimad weyn saddexda gobol ee ugu waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland, caasimadda Soomaaliland, gobolka Daadmareer iyo Togdheer, taasoo muhiimad weyn u leh xag bulsho iyo xag dhaqaale iyo xag ganacsi iyo xag mustaqbalba, xagga isu socodka, isdhexgalka iyo horumarka mustaqbal ee gobolada waaweyn ee Soomaaliland iyo guud ahaan xagga isu socodka gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ee bariga. taasi faa'iido weyn bay u leedahay saalaajigeed guud ahaan xukuumadda uu gurwadeenku yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee shalayta munaasabadda xariga ka jaray injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Cabdilaahi Abukar, iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. arrintaas munaasabadda qiimaha badnayd ee shalay lagu qabtay gobolka Togdheer oo ay haldoorka Soomaaliland, aqoon-yahanka, salaadiinta, cuqaasha iyo waxgaradka dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ay ka soo qayb galeen gobolada Daadmareer iyo Togdheer, maamulka gobolka iyo degmada. guul weyn bay u ahayd dareen ahaan iyo ummad ahaan iyo qaran ahaanba in gobolkeenu Soomaaliland ay ka horumarto xagga deegaamada iyo gobolada Soomaaliland. Soomaalilandna ay noqoto meel si siman oo balanskeedu yahay mid ku dhisan cadaalad iyo sinaan guud ahaan horumarka Soomaaliland ee xukuumadda kulmiye ay u gaadho. taasi waa mid aan ku ammaanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo cid kasta oo Soomaaliland horumarkeeda jecel. ilaahina waxaynu ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada iyo xasiloonida guud ee uu siiyay 30 years ago, taasoo aynu dheernahay maanta goboladan mandaqadan aynu ku noolahay ee gobolka Geeska Afrika. maanta Soomaaliland waxay ka tahay beel dahab bay ku leedahay xagga deganaanshiyaha, horumarka, dawladnimada, dimuqraadiyadda iyo dhismaha bulsho, aqooneed, dhaqan iyo amniba. maanta gobolka way ka tilmaamantahay Geeska Afrika Soomaaliland. taana waxaynu ku gaadhnay ismaqalka iyo kala dambeynta iyo dawladnimada iyo nidaamka aynu dhisanay iyo dimuqraadiyadda iyo hanaanka wanaagsan ee maanta qaranka Soomaaliland 30 sano isku soo bedelayay iyadoo 5 madaxweyne isbedeleen. ilaahina waxaynu ka rajeynaynaa insha Allah himilada aynu leenahay iyo higsiga iyo rajada shacabkan oo ah aqoonsi inaynu helo inuu ilaahay nagu guuleeyo goor ay noqotaba. xukuumaddana waan ku ammaanayaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka iyo iskaashiga ay la yeelatay dalalka Geeska Afrika jaarka mandaqadeena iyo guud ahaanba beesha caalamka. geedi socodka siyaasadda wanaagsan ee furfuran ee madaxweyne Muuse la yimi xagga arrimaha dibadda taana waan ku ammaanayaa, waana mid soo dhaweynaysa rajada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan mar labaad ku hambaleynayaa gobolada caasimadda Soomaaliland iyo Daadmareer iyo Togdheer hirgelinta qorshaha shalayto hirgalay bishoo shalay ahayd 7 waxay ahayd ballanqaadkii barnaamijkii xisbigu ku ballanqaaday inuu ku horumariyo gobolada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. taa madaxweynaha inuu suurto geliyo oo ay hirgasho wixii uu ummadda u ballanqaaday. waan ku hambaleynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hoggaanka sare ee xisbiga talada haya. anigana xisbi ahaan guul weyn bay tahay anigoo ahaa kaadiriintii xisbiyahanka ahaa ee roolka weyn ku lahaa barnaamijka horumarinta
siyaasadda gobolka Daadmareed anigoo ahaana campaignerkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waddankan iyo dalkanna mustaqbal wanaagsan ka doonaya kana sugaya oo ilaahay ayay xaqiisa ku xidhan tahay ilaahay mar walba leeyahay ilaahayow mar walba anigana igu guuleystaan guusha walaalahay iyo ummadeydaba oo jecelahay iyo madaxweynaha inay tayduna u soo degdegto madaxweynahana halkan fariin baan marinayaa mudane madaxweyne waxa kaloon kugu ammaanayaa sida wanaagsan ee aad ka yeeshay una dhistay dhalinyarada Soomaaliland oo maanta horumar nuglihiu ka muuqdo dhan kastoo loo eegaba xagga kobca aqoonta shaqo abuurka ka qaybgalka siyaasadda iyo talada waddanka dhiirigelinta qorshayaasha aad ugu abuurayso dhalinyarada hal abuurka in loo sameeyo maalgashi dhaqaale oo qaranka Soomaaliland uu leeyahay taana waan kugu ammaanayaa qasnada horumarinta dhalinyarada aad u samaysay waana mid xal wanaagsan ku noqon doonta dhalinyaraduna waa kuwii taariikhdaada qori lahaa mudane madaxweyne dalkan taariikh baad ku lahayd halgan baad u soo gashay adoo 30 jir baad madaxweyne u badheedhay inaad ummadan iyo maanta jiilashan jooga aad xoreyso oo ay gobonnimo ku noolaadaan ay ku waaraan waad u hurtay hasa ahaatee halgankii Ilaahay baa ka nooleeyay waana sababtaan kugu qiimeynaan kugu doranay inaad qarankan hoggaan u noqoto maantana la xijeclaad waddanka ka leedahay saad u dhisaysana waanu aragnaa gobolkii Daadmareed maalintii roobku da'ay 3 sano horteed waad garanaysaa mudane madaxweyne markaynu maraynay meesha la yiraahdo Seeto la xijeclo aad ka qabto waddanka iyo garasho iyo garaad Ilaahay ku siiyay ayaad ku soo degtay oo ugu damqatay in oo aad ku ducaysatay waliba tiri Ilaahay igu astur haddii doorashooyinka aynu ku guuleysano gobolada waxbaan qaban doonaa isku xidhkooda iyo wadooyinkooda tii wata Ilaahay kugu guuleeyay daacadna waddanka waad u tahay dhalinyaradana madaxweyne waan kaaga mahadnaqayaa sida wanaagsan aad u dhistay u horumarisay waana kuwii taariikhdaada qori lahaa ee ku sunti lahaa waddanka xal wanaagsanna waad uga tagi doontaa insha Allah mudane madaxweyne waad u soo jeedaa dalka iyo dadka iyo dhalinyaradaba waxaan mudane madaxweyne halkan ku soo marinayaa fariin ah mudane madaxweyne waxaad nagu qiimeysaa sidaan guushaada u jeclaynayno ku garab taagnay inaan ku dhisnay inaad waddankan taladiisa iyo hoggaankiisaba qabato inaad adiguna cadaalad mudane madaxweyne ku maamusho anigu hanbaan lahaa siyaasadeed himilaan lahaa higsi baan lahaa waad ugeed mudane madaxweyne aad badii dhiirigelisoo waxaad ku tiri haddaynu talada dalka ku guuleysano insha Allah waxaad noqon doontaa dhismaha ugu horeeya dawladdeeda ayaad ka qayb gali doontaa hankaygana waad ugeed madaxweyne halkuu yaalay oo labadeena iyo Ilaahay baa isla ogeyn wali dhiirigelintaadii iyo rajadii aan ka qabay ayaan wali ka dursugayaa mudane madaxweyne sad dhalinyarada kale buu dhiirigelinaysaa ugu soo jeeday aad u aqbalayso waxaan doonayaa mudane madaxweyne inaad iga aqbasho oo madaxweyne qarannimada ugu qiimeysay aanad qabiil ugu qiimeyn kursiga iyo hankii aan lahaanaad si sooban ka codsanaya mudane madaxweyne waxaan Ilaahay ka rajeynayaa inaad iga aqbal doonto insha Allah fariintaan ku soo marinayo waxaan kugu dhiirigelinayaa sida wanaagsan ee baraha bulshada iyo Facebook-yada iyo Twitter-ka iyo meel walba aad uga socoto xaaladda dalka iyo dadka iyo dhalinyarada codsiyada ay ku soo mariyaan aniguna madaxweyne waxaan ka rajo sugayaa insha Allah inaad ilaa xariis la sidaan adigaba kuugu eego aan kuugu garab taaganahay habeen iyo maalin kuugu difaaca kuugu hiiliyo inaad igu hiiliso mudane madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh